بنا بحي تقدر غير بارجال ويسوي بنا بحي وتأسي يعني وعلى نروح لعاصمة السوالية مقدشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى ما تغرها نتعلم هدان غير بارجال يتغرها تعلم ويتنوالي جدي وحوي كبير ويتراويسين سوى ولا وتعسين لها وحلينا يتدمتي الله نحرسته يتناوى على وحلينا إلهي عافيه إلهي عافبات ضد وعسيه وحلما علينا المدة رتوها الله يكرم علينا خطة كفا وصلية قدوية ورقة الورقة ودمان ورقة الورقة ودمان بارقال أرضيدا ضمان كسيطة القلياشة ضمان بحكا وغير بارقال كل يوم علينا وحلما والله وتعسين وسيلة رتوها ويرا سواليا محمد عبد الله فرماجو وعن مدة رتوها علينا وحلما دولة بطلان الدول محمد علي قاس وعن وشغينا هدان غير بارقال لهي قدية غير وسيرة كاكرة غيرك بطلان وبالحيوان وشرة كل واغل وعلى الديار الله هدان الله غير بارقال مامل إيران ودليرو وشعب وأرضي بدك وراء هي ودلاتين قالي إنا نلغي سنو وفي المالبا وعلينا إلهي المسلمة سوماليا كفر غاية وعلينا سوماليا أميوه وعلينا سوماليا أميوه وعلينا سوماليا أميراته وعلى إتعالي وما تفرح عن سمني إنا نمكذب غاية وعن كلهم ما يعنينا بولوها درس كنراه وحوي سوماليا وحوي سوماليا degmada Baargal gaar ahaan dugsiga sare ee degmada Baargal waxaanu Ilaahay uga baryaynaa intii ku waxyeelowday ee ku dhaawacantay inuu Ilaahay u boogadhayo inta ku dhimatana Ilaahay jannadiisa uu galiyo waxay ku dhinteen gacan ka xaqdaran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan Ilaahay uga baryaynaa inta dhimatay inuu u naxariisto waxay ku dhinteen ayagoo doonaya inay ku dhawaanshadaan dunidatan isla markaana aan ogeyn waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay waxay ku dhinteen gacan ka xaqdaran Ilaahay waxaan u baryaynaa inuu jannadiisa Ilaahay waxaan u baryaynaa inuu jannadiisa galiyo inta ku dhimatay dhawacaas qaraxaas aadka u xanuunka badan ee dareemeen dhammaan dadka ku sugan Soomaaliya iyo inta aan muslim ahayn iyo inta muslim ah ee ku sugan adduunkan korkiisa ee meel kasta ay ka joogaanba waxa qaraxa la dhibaatooday ama dareemay dhammaan inta ku sugan adduunkan korkiisa waa qaraxii ugu weynaa ee dhacay waxaanu leenahay Ilaahu inta ku dhimatay jannadaada gali Ilaahu inta ku dhimatay jannadaada gali Ilaahu inta ku dhimatay jannadaada gali Ilaahu inta ku dhaawacantay daawaca oo gaaray Ilaahu uu boogaday Ilaahu uu boogaday baan leenahay Ilaahay wax nagu bariyana inta ku dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto dadkaas waxa ahaa ee u soo gurmaday inuu Ilaahay ajarkooda khayrka uga daro inta ku dhimatay inta waxay soo ahaayeen oo halkaas daawac uu ka gaaray ee ka daqmaday waxa Ilaahay uga baryaynaa inuu samadi iimaan ka siiyo Ilaahay samadi iimaan ka siiyo Ilaahay samadi iimaan ka siiyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh inoo taxsoo direena dadka ku baabay xamar waxaan anigoo ardayad ka socota ama ku hadlaya afka ardayda dugsiga sare Maxamed Xuseen Secondary School Baargal waxaan tacsiyo tiinaayo iyo murugo la wadaagaynaa dhammaan dadkii ku baabay ama ku geeriyooday iyo kuwii dhaawacmaba iyo dadkii ay ka baaba'een dadkii ku leeday qaraxii ka dhacay xamar waxaan leenahay Ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto jannadiisana ha geeyo intii dhaawacmatana Allah ha u naxariisto Allah ha u booyadhigo waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dawladihii kala qayb qaatay dugsiga hoose dhexe Bilaal Primary School oo magacayga ku bilaabay xaawada Saciid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tiiraanyo u diriyaa dadkii ku baabay magaalada Xamar waxaan tiiraanyo u diriyaa dadkii ku baabay Xamar waxaan taasi u dirayaa dadkii ku baabay Xamar waxaan leeyahay dadka dhintana Ilaahay ha u naxariisto jannadiisa geeyo waxaan leeyahay dadka dhaawacana inuu Ilaahay dhaawacooda u fududeeyo waxaan jeclahay inuu Ilaahay dhaawacooda u fududeeyo dadka halka ku dhaawacmay
rabbigayna waxaa ka bariyaa dadka masaakiinta oo islaamka nafti u keenay inuu ilaahay naga soo qabto innaa lilaahi wa innaa ilayna raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayna raajicuun halkaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hadalkaygii assalaamu calaykum waraxmatullah Soomaaliyeed iyo aabbayaashii Soomaaliyeed iyo dhammaan intii Soomaaliyeed wax ku gaareen waana nila qabnaa dhibka waana wadaagaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa intii wax ku gaareen in sabir iimaan oo ka siiyo ilaahay wuxuu ka khayr badan ugu shaqeeyo. Assalaamu calaykum.